Bismillahirrahmanirrahim. Saaxiibayaal ku soo dhawaada sheeko cusub oo taxane ah lana magac baxday Cudbi. sheekadan waa sheeko ka turjumaysa waaqiciga iyo nolosha waana sheeko min bilow ilaa dhammaad ku xaydaaban gabadha Cudbi lagu magacaabo ama saatirishada sheekada waxa ayna sheekadu ka bilaabatay baadiye balse aan idin hoga tusaaleeyo qaabka ay sheekadu ku bilaabatay markii ay bilaabatay iyo jawigu siduu ahaa iyo meesha ay ku bilaabatay sheekadan Libaan Axmed Ciise Abwaanka ayaa qoray waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo ah Cabdinaasir Axmed Xasan Xiiri iyo Masir Fantastic ee ku soo durka qaybta koobaad ee sheekada Cudbi aan ku bilaabo Cudbi waa 15 jir waa gabar baadiye waana curada cali salaad mooge iyo xarido yaasiin sandheere waa cidla ku kor oo dagan meel magaalada ka fog oo aan daris badan lahayn waxayna xoogaa dad wehela ka helaan markay meel naq laga degay reerka uu ku soo furto Cudbi waa hooyada labaad ee reerka waxay kaalin weyn ka qaadataa shaqada maalinlaha ah ee reerka waxa ay si maalinla ah u raacdaa ariga korinta caruur 5 ah oo Maxamed u weyn yahana way ka qayb qaadataa waa gabar dadka yaqaan ay ku xantaan magaca Shankaroon sababtoo ah waa 15 jir meesha loo diro aan loo laaban hawl kasta oo loo dirana lagu haleeyo Cudbi waxa ay gabdhaha saageeda dheereed waxa ay taqaanay hawl kasta oo shaqo gabdheed ah oo miyiga laga qabto maadaama cid ay u weyneed marka aaba cali xanuunsado waxa iyada mudan jiray in ay booska aaba buuxiso oo ay dhaanka cidda u dhaamiso mana aysan ahayn hablaha nooca la yiraahdo fiidmeer ee hadda reer magaalka u yaqaano gabar hablaayo waa gabar reer bulsho ah iyadoo la micno ah waa wareegato waxayna ahayd gabar hooyadeed hamiinkii soo jeedka iyo hawsha baadiye uga dambaysa subaxiina cirka oo xidiga leh hawsha uga horkacda taas oo hooyo xareedo haweenka ay dariska la tahay markasta u sheegaan in ay ka gabar fiican tahay waana barbaarinta iyo hibo ee babixiyo dhanka kale Cudbi maadaama ay soo qaan gaartay hadda waxay yeelatay ka dumarnimo waxay noqotay gabar aad u qurux badan gashaantii intii markaas la deegaan ahayd tii ugu qurxoonayd kana soo jeeda heer faracoodi hore qurux lagu tilmaami jiray waayo hooyadeed xareedo waxa la oran jiray xidigtii yaasiin sandheere Cudbi halkaas ayay quruxda ka keentay oo waxay wiilal guurdoon ah ee aaga ka agdhawaa isku sheegeen in reerka cali mooge gabar gashaantiya u soo kacday quruxdan ganacsiga iyo guduudkan suuqa lagu gado ma jirin sidaa darteed Cudbi oo ahayd gabar aad u bilicsan joog iyo jamaal ilaahay u dhameeyay subag iyo sixinna ku dhaashata gabar kasta oo la istaagtana waa ka hinaastay wiil kasta oo afka kala qaadana Cudbi ayuu afka ku hayaa yeelkeede waxaas oo dhan Cudbi uma muuqdaan waxayna ku tiraahdaa dantii mooge waa dun iyo lafo وعادة رجع عضبي وحى كوبضاتي اسكو بدل كهاد ويل سوعج استاجا يكوا أصو شكاسي تجا وحين تاسي آخر كي كدح شيء إن أي عضبي رجع دون لعلوذو ومركز تاعي دبدا وجهه دين عقل حتو كي كسوق الدمنا أي عنروف كتفتو إيو كاب إن أي أصيبتو أي بلوذي وحنا مرر بدن دعدي إن دجال درتيد ودعو oo ay fooda isdaraan giyaankeed iyo wiilal ay ilma adeer yihiin marar badan ayaa daqar iyo diya la kala sintay Cudbi saaxiibka kaliya oo ay haysato waa Maxamed Dheere Muuse Macow Mooge oo ay ilma adeer labaad yihiin
waxaana kala dhalay cali salaad mooge iyo muuse macow mooge oo waxaa ilma adeerka koowaad ah oday cali iyo oday muuse oo kala dhalay cudbi iyo maxamed dheere cudbi waa u gaashaan ragga uga baqaan waa u wiil ciddu markay guurto xarada u ooda waana u walaal ay isla soo koreen isku xero iyo isku xillina ay dhasheen waa isku fil hal xagaa reerka ku soo kordhay waxayna wakhti isla qaataan mararka ay firaaqo helaan maadaama la weynaaday waxay dib u soo gocdeen maalmihii yaraannimo xishood baase beddelay hadda wakhtigu waa cararayaaye cudbi waxay soo gaartay gashaanti timaha dabatay iyaduna garatay in ay guur u baahan tahay oo gabdho qayrkeed ah uga hormareen darajo inay gaarto jeclayd taas oo ah hooyanimada oo dhammaan gabdhuhu ka siman yihiin jacaylka ay u qabaan in ay mar uun hooyo noqdaan intaa kadib cudbi waxay bilowday kala xulashada ragga gayaankeed ah oo awalba iyagu geedaha fooda ugu soo hayay waxayna dhinac ka raacday mahmaahdii ahayd gabari kunbay shawrisaa kow bay kala aqalgashaa sidaasoo ay tahay weli kama tegayso xishoodkii lagu yaqaanay cidabtii iyo asturnaantiina wayba sii siyaadisay laakiin sababta ay shukaansiga badan u samaynayso waa in uusan dooqu ka qaldamin si fiican u duur xusho raggana midka ugu garaadka badan ay hesho waxayna mar kasta xoogga saaraysay in ay ilmaheeda aabba fiican u doorto waana gabar aqli badane nin kasta waxa ay hordhigaysay xujooyin badan oo aad u adag ragga badanaana ku sababi jirtay in ay isaga haraan baacsiga gabadhan taasi waxay sababtay in rag badan ku baasi waayeen tijaabada cudbi marka ay ceelashaas ku arkaan ayay isku sheegaan gabadhan quruxda aqliga iyo garaadka isku darsatay ciroole iyo ciyaalna ay carabka ku hayaan cid walba oo loo sheegana ay iskeed u caashaqday عاد وحد وذاكتن كو عقارلو وصبكي إسكارو عكتمل السارو وعسكدا لهاينيو عيد عالبراتي عاد وحد وذاكتن كو عقارلو وصبكي إسكارو عكتمل السارو لعسكدا لهاينو عيد عالبراتي كأوكارو وديجين عتيدها يحيى عطيدنا عرف يداك التوغا سقل عاش سارا كأوكارو وديجين عتيدها يحيى عطيدنا عرف يداك التوغا سقل عاش سارا سريع عليتي عيدي بكيس لقارن يا وزعتينو عدالتي عذابي حبيبي عدوني تكوينوكو عابدو مغريو عدانكو وعالي مسارا سكم معنا qofkaas aan ka hadlayaa waa cudbi warkeedu waxa ugu dambayn dhagtiisa uu ku soo dhacay muuse waa in adeerka cali salaad mooge cali salaadna waa cudbi aabbaheed muuse waa ciroole ciyaalkiisu ilma dhaleen dhallaanka uu awoowaha u yahayna waysada u dirsado xoog kuma dhimana laakiin ma dhaqaaqi waayin
oo awooddiisa iyo shaqadiisa badanaa waa kaalmo uu cidda tala iyo tusaale u yahay laakiin waa afmaal waana odayga cidda oo garta iyo howlaheeda looga dambeeyo xaajo uu gooyana dib looma gelin waxaase sanad ka hor ka geeriyooday islaantiisa caasila oo dhimashadeeda dhinacyo badan ka bannaanaadeen si uu uga bogto boogihii soo gaaray waxa uu markaa bidhaansaday in uu buuxiyo booskii ay caasilo bannaysay allaha u naxariistee waxa uuna ishaartay in uu u golo fadhiisto cudbi maadaama aysan arrin uguba ahayn oo cudbi aabbaheed waxaa miyiro ahaan uu u qabaa axado oo ah walaasha hoos uga yar muuse macow mooge ku darso waa aabbaha dhalay maxamed dheere muuse macow oo ah saaxiibka keliya ee ay haysato cudbi muuse macow mooge waxa uu bilaabay inuu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulo siduu ra'yigiisa uga guurgaari lahaa waxa uuna sida uu dhaqanku ahaa shaqada ka bilaabay inuu walaalihiisa arrinta kala tashado maadaama uu dhammaantood u weynaa iyaguna way ku raaceen waxaana lagu ballamay in mar dhow arrinta gabadha oday cali waa cudbi aabbaheede loo galo fadhiisto dhinaca kale cudbi iyo aabbaheed caliba waa iska warmooge waxa uuna kala dardaarmay in ay maadaama guur ay gaartay gayaankeedna u joogto ragga nuxnuxdoodana hamiin walba uu ku kaco oo u ballan qaaday inuu u samaynayo nin alla ninka ay la timaado inuu ku daro iyadana waxa uu ka codsaday inay asaga ku sharafto gabdhaha ka yaryarna ay waddada u furto oo meel lagu bixiyo si ay asaga sharaf ugu noqoto aan ku xasuusiye waxaa baadiyaha ku badan in gabadha iyo wiilka markay ka heshiiyaan maaraynta qoyska ayaa waxaa gasha cabsi ah nasabka oo Soomaalidu aad u qadariso gaar ahaan reer miyiga ayaa waxaa dhacda in labadooda ay ismasaafaystaan qiyaas ahaan 90 kiiloomitir ka sheeshana sheekh iyo shaahidiintiisa iska soo mehersadaan siyaabo kala duwan kadib ayaa loo maareeyaa qalgalka reerka cusub waxa hubaal ah 90% waxa uu noqon jiray reerkaasi mid guuleysta waxaase sharaf badnayd qaabka uu cali gabadhiisa kula talinayay laba qaab ayaa badanaa gabdhaha lagu baxshaa midka koobaad waa gabadha oo lala soo heshiiyey kadib loo soo galo fadhiistay iyo kan labaad sida uu oday muuse macow rabo oo iyadoo aan gabadha lala hadal intii la soo garamaro odayga gabadha dhalay markii warka loo soo gudbiyo kadib gobol xilliyeysan la dhigo markii xilligii la gaarana intii la isku yimaado geed hoostiisa la fariisto la iska xoolo qasho isxog wareysi isxuraasi kadib lagu xidido yaradna la kala qaato oo ma badnayn in gogol la dhigay ninna gabar lagu weydiistay inuu diido haddaan ma geysid iyo wax kaloo la mida lagu marmarsiyon gabdhuhu badanaa ra'yi iyo soo jeedin kuma lahayn waxayna ahaayeen mid garcadde aysan rabin lagu daro iyo mid gaban ay wadato loo diido waxayna ku qanci jireen amarka odayaasha dhinaca kale maxamed dheere muuse macow qudhiisu waa doob nuxnuxda iyo xanta aabbihiisna weli ma soo gaarin laakiin maadaama uu doob shiira yahay dhinaciisa ayuu goobid uga jiraa waana rag iyo hamigiise qudhiisu dhankiisa ayuu ul ku fiirinayaa cudbi oo uu isleeyahay kalsooni badan ayaad xaggeeda ka haysataa waxa uuna istusaa bal ka waran haddii noloshiina saaxiibtinimo aad u beddeshaan mid qoys iyo mid lamaane laakiin waa wax keligiisa ku kooban qalbigiisa iyo ra'yigiisa mar kasta uu la kulmo cudbi oo uu is yiraahdo u sheeg arrintan waxa uu iska dhaadhiciyaa dabcan arrintan cudbi kama diidi doontee ee mar munaasiba la eego aabe adeer iyo qaraabadana ku wargeli kadibna ha la iskugu kiin duceeye mar kastana waxa uu hawl ka dhigtay inuu waqti intii hore ka badan la qaato cudbi ku soo dhawaado farxad intii hore ka badanna siiyo cudbi
ma dareensana kursiga maxamed iyo waxa uu hoos ka wato oday muusena ma soo gaarin laakiin kama qasna waxayna farxad iyo damaashaad ka qaaday wakhtigan badan oo uu siinayo qof ay jeceshahay la jooggiisa waxaana ku sii saa'iday jacaylka walaalnimo ee ay u qabto maxamed dheere muuse macow waxaan maqli jiray waraf iyo shimbiro waras kuma hayaan waa aabbe iyo wiilkiis aan waras ka hayn waa aabbe gabadha uu soddonka u noqon rabo gaadaya iyo wiil eedadiisa mustaqbalka xodxodanaya laakiin nasiib xumo waras kama hayaan talow maxaa dhici lahaa hadday is ogaadaan keebaa is leedahay waa in uu tanaasulo intaas haynoo joogto qaybta koowaad sheekada taxana ahaan doonta ee cudbi sheekadan waxaa qoray libaan axmed ciise abwaanka waxaan idinla socodsiinayey anigoo ah cabdinaasir axmed xasan xiiri amase fantastic intaan ku kulmi doono qaybta labaad ee sheekadan cudbi nabadgelyo